Misweydiisay halkay ku yaalaan meelaha indhaha dadka qabta ee qof walba ku riyoodo inuu booqdo. Maanta waxaan idin soo xulinay 5 magaalo ee ugu bilicda badan adduunka, laga bilaabo kuwa taariikhi ah ilaa magaalooyinka mustaqbalka. Daawo ilaa dhamaadka si aad u ogaato magaalada nambarka 1 fadhida. Magaalada nambarka 5 ku jirto waa Rio de Janeiro, Brazil. Magaalada midabada iyo buuraha. Rio waa magaalo ay kulmaan dabeecadda kulul iyo nolosha casriga ah. Waxay caan ku tahay buuraha dhaadheer ee granite-ka ah ee ka soo dhaxbaxa badweynta, iyo taalada weyn ee Christi Redeemer oo dusha sare ka eegaysa magaalada. Haddii aad raadinayso xamaasad, xeebo qurux badan iyo dhir cagaaran oo magaalada dhexdeeda ah, Rio waa halka ku habboon. Magaalada kaalinta 4 ku jirta waa Paris, Faransa. Magaalada jaceylka. Paris weligeed kama dhacdo kaalmaha hore ee bilicda adduunka. Waxay caan ku tahay dhismaha caanka ah ee Eiffel Tower iyo wadooyinka u dhisan qaab dhismeedka farshaxanka ee loo yaqaan Haussmann. Webiga Seine ee dhexmara magaalada iyo matxafyada adduunka ugu caansan sida Louvre ayaa ka dhigaya meel ay isku dhex jiraan taariikhda iyo raaxada nolosha. Magaalada kaalinta 3 ku jirta waa Cape Town, South Africa, halka ay badda iyo buuraha isku dhukanayaan. Cape Town waa mucjiso dabiici ah oo ku taala cirifka Afrika. Waxay caan ku tahay buurta dheer ee Table Mountain oo dhabarka ku hayso magaalada iyo xeebaha quruxda badan ee ay ku kulmaan badweynta Atlantiga iyo tan Hindiga. Midabada kala duwan ee guryaha degmada Bo-Kaap iyo dabeecadda aan weli la taaban ayaa ka dhigaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu soo jiidasho badan adduunka. Magaalada kaalinta 2 ku jirta waa Florence, Italy, hoyga farshaxanka iyo Renaissance-ga. Florence waa sida matxaf weyn oo banaanka yaala. Waxaa lagu tiriyaa inay tahay xaruntii oo kasoo bilowday farshaxanka casriga ee Yurub. Dhismooyinkii qadiimiga ah, gaar ahaan kaniisadda weyn ee Duomo oo leh saqaf sare oo ka samaysan dhoobo gaduudan, iyo buundooyinka taariikhiga ee dulmara webiga Arno ayaa siinaya muuqaal aad moodo in lagu dhex sawiray filim hore. Magaalada kaalinta 1 fadhidu waa Kyoto, Japan, wadnaha dhaqanka iyo deganaanta. Kaalinta 1 magaalada ugu quruxda badan sanadka 2026 waxaa fadhiya Kyoto. Magaaladan oo ahaan jirtay caasimadii hore ee dalka Japan in ka badan 1000 sano. Waxay caan ku tahay macbadida dahabka ah iyo beero si heersare loo habeeyay. Xilliyada ay soo baxaan ubaxyada cherry blossom iyo marka caleemaha geeduhu gaduutaan, Kyoto waxay isku bedeshaa meel ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee bini'aadamka saaro. Adiga magaalada kugu qurux badan ama aad jeclaan lahayd inaad booqato, noogu reeb ra'yigaaga qaybta faallada. Haddii aad ka heshay fadlan video like saar, page-ka follow so asxaabtaada noo share garay. Mahadsanid.